runtii waxaa maanta sharaf weyn noo ah inaan arkayno qayb ka mid ah ballanqaadyadii dowladdan ay ballan qaaday xilligii ololaha ku jirtay oo astaanteedu ahayd tayeyn iyo tiigsi tallaabooyinkii ugu horreeyey oo dowladdan qorshihii ay baarlamaanka u gudbisay waxaa ahaa in la tayeeyo dhammaan nidaamka dowladda Puntland oo xilligaas 20 jirsaday muddo dheerna soo socday duruufo kala duwan na ay soo mareen tallaabooyinka ugu horreeya oo aan qaadno waxay ahayd inaan tayeyno dhinaca dhaqaalaha iyo maaliyadda markii ugu horreysaba waxaan xakameyn ku sameynay habka dakhliga u soo xarooday iyo habka kharash bixinta si aan u xaqiijino waxyaabaha kale oo aan rabno inaan tayeyno ugu muhiimsanayd tayeynta xagga amniga oo ugu horreeyaan dib u habaynta ciidamada Puntland burburkii 1990 kadib waa ciidankii ugu horreeyay ee Soomaali leedahay oo si dowladeed maamula loo aasaaso waxaan ugu mahadcelinayaa madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf iyo saraakiishii la shaqaynaysay oo dhammaan ciidamada dal u baahan yahay ay dhiseen haddii aan lahayn ciidanka daraawiishta oo difaaca guud ahaa booliiska asluubta iyo nabad sugidda intaba runtii dowladda Puntland dadkeedu waxay samaysteen 98 dowlad dhamaystiran oo lahayd sharci iyo dastuur xeer jaartar ah markaasoo dastuur su duleyn saddexdii dowladood dowladdii ugu yaqaanay ahaa golihii fulinta golihii baarlamaanka iyo golihii garsoorka markiiba waxay ku dhaqaaqeen dhismo ciidan oo hantay Puntland gebi ahaanteed waxay markiiba mideeyeen dhowrkii sano oo ku horreeyey oo dadku barakaca iyo isku ururka ku jiray iyadoo dalku ammaan ahaa laakiin kala qaybsanaan ciidan iyo dakhliga dowladda oo kala qaybsanaan magaalo walba iyo meel walba gaar u qaadan jirtay inay mideeyaan oo mid qura ka dhigaan oo dowlad taabagashay oo sharci iyo nidaam leh oo ah kan maanta fursadda noo siiyey inaan doorasho ku galno madax ku noqonno hadafkii dadka reer Puntland ee 98 ay hiigsanayeen aan hore u sii wadno
maxaa soo kordhiyey maxaan soo kordhinay way su-aasha meesha taal waxaan garowsannahay dhammaanteen puntland in ay la soo gudboonaatay cadow fara badan oo dhinacyo kala duwan leh oo diidanaa inuu dal xasiloon oo nabdoon uu noqdo puntland waxay gashay dagaallo dhinacyo kala duwan ka yimid xuduudaha puntland ka yimid argagixiso ka yimid burcadbadeed ka yimid tahriibayaal ka yimid musuq maasuq iyo ragaadin ka yimid dad aan sharciga u hoggaansaneen ka yimid 20 sano dad maamul aan taageero dibadeed haysan oo intaa jiray oo isu soo difaacay runtii waa wax ilaahay loogu mahadiyo taariikhda in la geliyo badan meeshii baan ugu nimid weli ma haysato taageero dibadeed oo dhinaca amniga iyo ciidanka oo wax ku oola oo dalkan soo gaara annagoo og in balaayiin doolar sanad walba lagu bixiyo amniga soomaaliya oo security councilka qaraaraadkiisii shalay uu ka muujiyey lacagtaas iyo hubkaas dalka soo gala inay amnigii soo kordhin weyday oo al-shabaab ay noqdeen dowlad kaleeto canshuuro qaada oo dalka waxay rabto ka xukunta deegaanada aan puntland aysan ku jirin marka laga reebo waxaa markii ugu horreysay oo aan damacnay inaan hadafkaa fulino aan xukuumad ahaan iyo aniguba aan go'aansannay inaan 2 qaybood u baahannahay oo ka talisa qorshaha dowladeed iyo aragtida dowladdu ay la timid waxaan magacaabnay guddi la talin dhinaca amniga ah oo saraakiishii dalka soo martay maamulkii naga horreeyana soo martay kana mid ahaa dadka ciidanka markii hore aasaasay oo madax u yahay madaxweyne ku-xigeenkii hore cabdisawi cali shire xaabsado iyo ragga aad arkayseen waxaan kaloo magacaabay guddi wasiirro ah oo aan madax uga dhignay wasiirka maaliyadda maxaa yeelay hawshaan waxay u baahan tahay dhaqaale waxaan ku amarnay dhaqaalaha dalka soo gala waxa ugu muhiimsan oo ku bixin doono inay tahay ciidanka iyo difaaca dalka waxaan ka dhiganay mushahar bixinta ciidanka baahiyahooda hadafka koowaad ee wasaaradda maaliyadda way xilsaaranta waxaana aragtaan muddadii hadda aan xilka haynay bil keliya kama uusan maqnaan mushahar runtii anoo garaabaya maamuladii horreeye duruufaha haddana haysta kuwo la mid inay haysteen weli dalku dagaalkii ku jiraa ciidamada puntland weli difaacyadu inay uga jiraan dhinac walba hadday noqon lahayd buuraha iyo hadday noqon lahayd xuduudaha puntland dagaaladii aan soo sheegnay oo dhan sidooda ugu jiraan dhaqaale yaradii sidii ugu jirtaa duruufaha u diiday tababarada joogtada ah iyo dib u habaynta waan garaabayaa inay qayb ka mida tahay duruufta oo puntland ku xeernayd oo weli ugu xeeran laakiin waxaan ku dhiirranay inaan iyadoo intaas jirto ciidankiiyo difaac ku jira inaan xarumihii tababarada fulno inaan 4 xero oo qaybtood ay jireen laakiin uu dayac ka muuqday dib u habayn ku samayno kuwo aan jirinna aan abuurno si hadafkaas loo xaqiijiyo oo marxaladda soo socota oo la rajaynayo dalka soomaaliya inuu ka baxo marxaladda hadda ku jiro puntland 20 sano hadday jirto waxaa la rabaa marka laysla jaanqaadayo puntland oo awood leh oo qaybta ay soomaaliya ku leedahay qaadan karta maamul ahaan iyo ciidan ahaan iyo qorshe ahaan inaan dhisno marxaladda hadda joogo
waxaana haysta cadowyo aan muuqan oo hore lagu jiray annagana na haysta oo ah cadow musuqmaasuq oo diiday inay hagaagaan oo meel walba galay dad badan baa hadda waxay dagaal noogu wadaan inaan nidaamka maaliyadda sidaa hadda wadaan aan wax ka bedelo oo lacagta aan farraqno oo dadaan xaq u lahayn inaan siino waxaa kaloo cadowgaasi uu ku dhex jiraa bulshada wuxuu kaloo ku dhex jiraa ciidamada labadaba waa aafo runtii haddaynan iska qaban waa cudurkiina dili lahay waxaan garowsanahay dadkaasi inaysan dad sahlan ahayn oo dad xooglan yihiin laakiin waxaan u dhaaranna oo ballan qaadnay inaan cadowyadaas cadow ka mida yihiin oo iyagana la dagaalamo haddii laga baxdo waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis tallaabada maanta bilaabatay oo markii ugu horreysay muddo laga soo shaqaynayay haddaan khaldanayn xeradan abaabulkeeda waxaan bilownay bishii saddexaad oo kale soo ahayn haddaanan khaldanayn bil annagoon jooginba qorshaheena ugu horreey waxay inaan xerooyinka bilowno fishinkaas iyo aragtidaas waa la nimi ma ahayn midna laga dhalatay markaan kursiga kornay waxay ahayd qorshayaashii ku qornaa buuggii aan ugu talagalnay inaan bulshada usoo jeedino waxaan rabnaa inaan ka dhabayno waxaanan iga rajaynaynaa inaad gacan ugu siisaan inay arrimahaas ay halfiyadaas hirgalaan waxaan aad ugu bogaadinayaa dadka intiisa badan oo runtii ugu bogaadiyey shaqooyinka iyo howlaha aan wadno waxaanan rajaynayaa haddii ilaahay idinka dhigo inta yar oo mar walba inta wanaagsan ku dhex dhuumanaysa ee muuqaalkii ahaa nin doonta la wada saarayahay mid rabo inuu meel ka duwanay biyo dhaqamo yar hoos ka doontay biyo cabbaan inaan kaa iska wada qabanno inaan ka wada shaqaynaa rabnaa haddii ilaahayno waan dareemi karaa culaysyada ay leedahay waan dareemi karaa culaysyada ay leedahay waan dareemi karaa habka wax u socon jireen qoysas badan iyo dad badan inay ku noolaayeen laakiin waxaan idiin sheegayaa puntland ma gaarin waxa adduunka loo yaqaano warfar lacagta soo gasha inay dadkeeda u qaybiso weli maanu gaarin waase rajaynaynaa markii bitroolka loo soo burqado inaan qof walba gurigiisa loogu qaybin doono lacagta hadda inta yaroon haysanno waxaan rabnaa inta laga wada dhexaysa inaan ku qabsanno oo ugu horraysa amniga iyo dowladnimada iyo dadka u shaqaynaya intaa markaan ku qabsanno hadafka labaad wuxuu yahay ilaa bulshadeedu waa bulsho sabooloo ma dhahayn oo canshuuro aan ka ururinaan dowlad ku wadayno caqligaas dad baa waxay yidhahdaan dowladnimada canshuurta ururiyaa lagu qaado dad saboola canshuurta xaggee looga ururin inta yaraan hadda ka qaadno amniga markaan ku suganno waxaan rabnaa inaan dhaqaalaha iyo maalgashiga aan keenno oo khayraadka aan leenahay awooddiisa dad noo soo saara aan helno oo bulshadeenu markaas ay hodayto canshuurtaas dambe ayaa dalka miisaaniyadiisa o dhan lagu habayn doona haddii lahayno inta aan ka gaarayno inta annaga nagaga aadan muddada aan xilka joogno ayaa qaban doonnaa inta dambena way qaban doontaa laakiin waxaa noo muuqda hifafaaro lagu qaban karo iyo khiyaar kale oo aanan lahayn khiyaarka kale wuxuu noqonayaa inaan beelo noqonno oo beel walba wixii sagaashadeedii ku horraysay gurigeeda labada dhinac asbaaro ka dhigato wixii ka soo gala iyada ay cunto saasuu noqonaya laakiin haddaan rabno in aan canshuurta inta yaroo lahayn meel walba laga ururiyo oo si qaybsan oo midaysan in loo qaybiyo oo midka jiibka jooga oo buuraha fadhiya iyo midka dhinaca u shisheeye jooga ee kalkuda taale hadda difaaca uga jira iyo midka godad uga jira iyo midka tukarrada uga jira iyo midka buuraha calmari saaran ay mushaharooyinkooda meelaha ugu tagaan si uusan daadka noogu soo rogon oo cadowga gudaheena noogu soo rogon waxaan rajaynayaa shacabka reer puntland inay nala fahmaan arrintaas iyo aragtidaas fog aan u soconno gacanna nagu siiyaan waxaan rabaa
oo siyaasadda jecel waxaan rabnaa siyaasadda sidii hore lagu gaaray intii la iska dhaafo sanadkan intuusan dhammaan waxaa lagu dhawaaqi doonaa nidaamka xisbiyada furdhannaa in la furo waxaan rabaa dariiqo xabaariya in la bilaabo ninkii damac siyaasadeed ku jira xisbi furto tartan galo waxa lagu tartamaayo ay noqoto qorshe siyaasadeed iyo aragti siyaasadeed uu dadkiisa u soo bandhigo ciidamo isku dhafan dhaqaale midaysan nidaam siyaasi oo furfuran tartan caafimaad qabo oo shariif ah intaa haddaan ku guulaysano dal xasiloon oo degan oo horumar ku socdaan ilaahay idinku tigsan doono intaa waxaa dheer puntland ma keligeeda ahaanaysaa jasiirad horena ugumaysan tarin madaxdii hore ama ugu tarin maayo puntland waa hooyada federaalka soomaaliday baadigoodaysaa in ciidankeenu habco sida halka xaabsida ku sheegay waxaa sabab u ahaa ciidamadeedii oo ka xogeynaya cadowga magaalo madaxda muqdisho ciidamadaana la tababaraya ciidamada kale ee puntland uma taagna difaaca puntland keliya weli waxaan diyaar u nahay meel kasta oo soomaaliyeed oo looga baahdo sidii horeyba ay u tageen inay haddana uga qayb galaan difaaca dalka soomaaliya guud ahaan intii karaankooda waxaase rabaa inaan xaqiijiyo habka federaalka ah ee ciidamadaas aan sheegnay awooddeena ay ku liqantay waan ka xumahay in dadkii ka dambeeyey dadaal kasta inkastoo ay sameeyeen uu hadda uu ku noqdo durdureello cabsi gelin kara shacabka reer puntland in riyadaas ay kuma hubuudaan waxaa la rabaa dadka reer puntland inay u diyaargaroobaan hadafka koowaad marxaladdan adag ku jiro waxa weeye hadafka koowaad waa midnimada puntland in la ilaaliyo maadaama dalka soomaaliyeed cadow badan iyo gacmo badan ku jiraan iyo dad aan dowladnimo rabin oo al-shabaab ah koonfurta soomaaliyeed xoog lagu qabsadeen hadafkeena koowaad waa puntland ilaalinta hadafka labaad ayaa ah baadigoobka iyo ka xoraynta dadka xun ee koonfurta soomaaliya ee al-shabaabka inaan ka xorayno haddaan kari karno siyaasad iyo dhaqaale iyo ciidanka laakiin hadafka koowaad hadduu burburo soomaalida xitaa ninkii tiisa daryeelaa tu kala ku dara ogaada puntland markay dadkeeda badbaadiyeen deegaanada kale oo soomaaliyeed mar kastoo duruuf haysato way garab taageen hadday ahayd duruuf siyaasadeed hadday ahayd duruuf amni iyo mid dhaqaaleba waxaan jeclaan lahaa inaan halka maanta uga tacsiyeeyo aafada ku dhacday magaalada beledweyn iyo dhammaan webida shabeelle qeybuhu kale oo ugu daran tahay beledweyne fatahaadda ka dhacday dadkii shalay ku geeriyooday waan uga tacsiyeynayaa dadka reer puntland oo mar walba u taagnaanaya walaalahooda hadda meesha ay ka liitaan inay ka taageeraan waxaan ku baaqayaa inay taageero muuqato ay la gaaraan walaalahooda aafada dabiiciga ay ku habsatay waxay kaloo puntland badbaadisay dad fara badan oo usoo karakacay oo deegaanadaas cadowgu haystona dadkeeday ku soo dhaweysay waa ay ku dhaqmeen waa ay ku horantameen masajka ugu muhiimsan oo la ilaalinayo waxa weeye midnimada puntland waa muhiim marxaladdan marxalad adag oo anigu aan dareemayo in nidaamkii ay puntland ay ku soo tiiriya tacabbeeshay in carqalad la gelinayo inuu socdo iyo dariiqyo cusub oo waxaan arki jirnay nin walba tiisa haysata waxa in lagu qabteen hadda waxaa socda haddaan anagu hagaagooda inbana hagaagin faragelin iyo carqaladayn nooc kaleetaabaa dadka ku socda dagaaladu tabihiisu waa tabiihi waxaa lagu socda xabad keliya maaha waxaa socda dagaallo dadkan ra'yigooda iyo maskaxdooda jiilkooda cusub lagu wasakaynayo dadkan waa dad wadaniyiin waa dad soomaaliya waa fikirka soomaali inay shan ahaato oo weligood meeshii ka dhalatay marna lagama filaayo ra'yi kaa ka duwan laakiin waxaan rajaynayaa jiilka cusub in si fiican looga warhayo mas-uuliyiinta kala duwana dowladda puntland waxaa la rabaa dadkeeda maaha amnigu ciidanka cadowga ku soo socda keliya
maskaxdiisa iyo caafimaadkiisana in la ilaaliya ay rabaa dadkan waxaa rabaa dadka in wax loo sheego xaqiiqada loo sheego waan ka xunahay dad muuqa dad waaweyn ka ah oo baryahan koofiyadaha waa isku wada gasho koofiyado wata oo waxay ku hadlayaan markaa maqashid aan isleedahay kuwa kalna kuwa loo soo diray dadkaan inay kala waryaanba waxaan rajaynayaa dadkaas in la caqli celiyo dowladda شرعي كبسطة وحشرعي كسر غير مرة عند كسر سكوت دون شرعي جلسة من دون البنتمان طلاب القائس وحقيقة جرتوية أديك الدورة هامين انت هذا الشيء يقول برغم الحياة هذا المجال تربوه عندهم من العلن يعني إلى إيمان تبرتجي للسي شنب غرب يا فرق يصدق لما يرى يعيدون الزوجنا والنصيب يشيلنا نقلان دفعاتي كوال مرحلتي هذا أنا نقول مدحضة هين أن أحرر من أي فوضى يقولوا أنا هين ممكن هو السيد تاريخ الدكسي على الشيء إذا مفر ربنا وجدته وبرئ مرحلة كلا دول وعيد أنا كوا هين مجالة كرنو إلى السوق والسوق بدك مرتبة الأحمر إنت سوق عليه لكن برضه تجرعين هم بوجود على أنت وربنا وحرجينا وإن مرتجلين أحسن يسوقون أحسن إذا مرحبين أي كهلان بدونها وأكون خلافنا اليوم هذي بحضره وهو قلنا هذي حتى بجيب الشباب وقت ما رعى الملك مركا إلا استحقر الله وضد ذلك ما هذا الحبس بجرم اليوم هو ضد مسؤولية وضد دفاع القرنكة وقلت لقري وعن رجينا مثل الوايم هايو مثل حكومة وطقنكم هل كواجه ولكن هل كجوجا وكل البسيارة إيجا لابد من الكفاء فلا إذا ما أنا محررة قف كسر تنبيلا إلى كفاء من مريض كل يريد لابد runtii u ammaanayaa odayada dhaqanka iyo duqooyda istimada iyo nabadoonada gobolka Hikaar ee magaalada Qardho ku sugan oo runtii taariikh ahaan mar walba ka duwanaa taariikhda dhaqan ee Soomaaliya inteeda kale Qardho waxay astaan u tahay waa magaaladii dhaqanka waxay leedahay dhaqan ka xoog badan oo ka fac weyn kan dowladda hadda haysato dhaqankaas wuxuu saldhig u noqday deganaanshaha iyo kala dambeynta magaalada Qardho ku faanto iyo ku murtigeliso cid walba timaada aysan uga qalban waxaan rajaynayaa dhaqankaas suuban iyo wanaaggaas iyo kaalintii ay lahaayeen oo hadda u taagan yihiin inay sanadana sii wadaan inay garab istaagaan maamulka gobolka iyo degmada maamulka dugsiga tababarka ciidamada kala duwan la jooga iyo laamaha dowladda wixii ka khaldan ay ka toosiyaan wixii ay ku wanaagsan yihiin ku garab galaan wixii ka dhinaado inay mar walba aysan moogaan dowladdan waa dowlad tabar yar ma dhahayno si joogto ah u joogtayna waa jecelna laakiin mustaxiil maaha dowladdu inay daaro colaadeed meel uga soo furmaan oo sababa dakhliga yaraan haysano hadda si fiican buu qorshaysan yahay laakiin ma haysano miisaaniyad hadday wax culus ugu yimaadaan aan ugu talagalnay marka waxay noqonaysaa miisaaniyadda madaxyadeeda inay isbedbedelaan waxaan rabaa dugsigaan inuu xirmin ma rajaynayo taas inay dhacdo laakiin waxaan uga sii dhiganayaa magaalada Qardho hadday taa dhacdo xataa mas-uuliyadda dugsigaan ku socon lahaa dadka reer Qardho iyagaa iskale taliyaan ka dhigiyay laakiin waxaan rajaynayaa dowladdu inay ku filnaan doonto haddii ilaahay culays ina soo saari doonin shaqada wanaagsan taliska ciidanka
iyo guddiyada la talinta dhinaca amniga iyo kan dhaqaalaha ee guddiga wasiirada ah iyo la taliyayaasha labadaba shaqada ay qabteen waa uga mahad celinayaa waqtiga ay geliyeenna waan uga mahad celinayaa waxaana rajaynayaa shaqadan miraheeda in dhowaan la arko waxaan noogu jirta dadaalka ma aha inaan ciidanka tababarno oo keliya waxaan rabnaa inaan joogtayna sida la sheegay mushaharooyinkooda iyo xuquuqahooda kale waxaan kaloo rabnaa inaan agabkooda ciidan hagaajino hadduu ilaah wadan ka dhigo waxa la haystana aan dib u habayno waxa ka dhimanna aan u raadino waddanka soomaaliya waxaa la siiyaa hub aad u fara badan oo magaalada muqdisho yimaado waxaan idiin sheegayaa puntland oo ah dhulka ugu baaxad weyn ee maamul soomaaliyada ku jiro xataa somaliland maamulka sheeganaysa marka lagu daro dhulka ugu baaxadda weyn puntlandna maamusho hadda meel kale oo maamusho male puntlanddaas maamusha hal fuuq dowladda dhexe kama soo gaaro intaasoo jeer baa ku codsanay cadowgaas sidaan ugu hortegi lahayn isku tashigaas hadda ku wadnaa waase rajaynaynaa haddii ilaahay idmo in dib loo fiiriyo nidaamka dalka lagu xasilinayo waan rajaynaynaa in ciidamadeenaan tababareenno iyo adduunka inuu si fiican u fiiriyo miisaaniyaddiisa u baxda oo uu ka garaaday ergay gaarka ah ee qaramada midoobay ee laba maalmood ku hor ee noogu yimid magaalada garowe intii ingiriiska taqaanana way aragtay inta kalena waa loo turjumay wuxuu qiray inay puntland la dagaalanto argagixisada iyadoo isku tashanaysa waxaan u gudbinay in dhaqaalaha faraha badan ee la sheego inuusan noo imaan waxyaabo yaryar oo dhinaca boliiska marmar laga soo gaaro way jiraa laakiin ciidamada daraawiishta waxba ka soo gaarin marar badanaa waxaan maqlaa dowladda federaalka haddaad u heshiisaa u dagaahanaysa dowladda federaalka annagaa ah arrimahan waa arrimo dastuuriya arrimo qofay laba qof ka dhexeeya maaha aragti siyaasadeedna maaha dadka maanta jooga iyo annaguba ma aha dad sii joogaayo waa systemka waxa la ilaalinayo waxa aan ka shaqeynayna waxa waaye system anagoo soomaaliyeed inuu dhisno oo si uu marlabaad u leexin hadduu qallooc ku socdo si aan marlabaad intuu u burburin annaguna aanu dhibkii aan soo marna u marin hadduu qallooc ku jiro waxay ku darsaneen hadda idin sheegaayo ama dadkii soo baxay baa kamid hadduu qallooc ku jiro puntland waa ilaashanaysa halkaas nidaamka hadduu isku wada furmo ciidamo dowladda soomaaliyeed ee xukunta dastuurkaa dhigaaya ciidamada daraawiishta qaanuun ahaan dastuurka puntland boliiska ka tirsan yahay waa boliis u tababaran sida military qayb ka mida iyo kuwo la qoro waxaan rabnaa inaan uga qayb galno ciidamada militariga ee la samayn doono waxaan rajaynayaa ciidamada iyo hubka galmudug kusoo huraya oo aanan ahayn magaalada maysamareen meel colaadi ka jirto waa meel 12 sano u dambaysay ammaan ahayd waa meel 12 sano u dambaysay maamul ka tirinayo marna ahlu sunna ka tirinaysay marna galmudug ka tirinaysay waa meel aan al-shabaab joogin hub in loo soo dalbado sax maaha waxay u baahnayd maamulka xilligiisa dhamaayo maamulka la soo gelin laakiin hubka loo soo dalbalayo galmudug waxaan u sheegaynaa caalamka iyo soomaalidaba inuu dhiilan leeyahay khatarna keeni karo ammaanka galmudugna wax yeeli karo kan puntland oo daris la-aana uu saameyn ku yeelan karo suuragalna ay tahay gacantooda hubkaas inuu galo dad xilmukasar ama al-shabaab gacanta galo waxaan indhaha wadankii rajaynaynaa oo codkooda ku sheegaynaa dowladda soomaaliya wadatashiga inay badiso waxaanan u caddaynaynaa inaan diyaar u nahay dalka horumarkiisa siyaasadeed dhaqaale iyo amniga inaan kala shaqayno annagoo dhowreena qawaaniinta iyo xeerarka dalku yaallay dastuurka waxaana rajaynayaa intii ay barabumaadka haweenka isku mari lahaa in la wada fariistoo la wadaan dadkoo ku baaqnay laakiin waxaan ka xunahay waayadaa dhammaha ii muuqdaan falal kuwaa ka duwan oo dad la leeyahay hadla oo meelo laga kicikicinayo oo madda magaalo laga kicinayo ma waxaan annaguna sameynaa sidii la dhihi jiray dagaalka xijigaha annagana ma ku yeelnaan markeenna hadal siina ma saasaa dhan ah waxaan ii ballanqaadayaa puntland hadaf aan ku soconno sidii wasiirka sheegay ma daweexaneen haddii la isku dayo inna la mashquuliyo ma mashquuleen haddii ilaahayno waxaan ku soconaynaa dastuurka iyo nidaamka dalka
hadafka siyaasadeed ee aad aqbasheen oo ahaa inaan dalkan tayayno wixii uu haystay tiigsano wixii ka badnaa ugu dambaynna dadkiisu ay noqdo barwaaqaana ku nool baraaro ku nool niyad fiican iyo walaaltinimona ku nool taasaan ka shaqeynaa waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi